لكن قولوا يا نبي صندوق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريال ميشان إنه صوم الرأي أو فاروق وأقولي دمرك لقد علس كأنه قلت لك لنا وصلنا. هذا واحد بلعبه إن registration كي بريل لقى بلعبه. طبعا كقبله ده أهري مركها هلنا وافرنا. وحال لها البدرية 2. البدرية 2 وحال لو بحيي ما حد كلقد علس كرجع أيها كهوريي وإنه هذا دحفرينه. ما حد كاسمح فرية هاي 6 سنة وحكى قال شبيبي الله بقول 6 يلحقف ضدك ترى وقاعدة وإلى بقول قف لكن بقولك هو circulation قيبة بحيسة قيبة سوق جليسة قيبة قال شبيبي قيبة مركي هجاجان لك حيستا قيبة justification يوحلو سمية ولا كحياة أو misunderstand فهم الآن وارد كي يلمس فهم ويان
oo ilmuhu ka caqli badiyo waalidka baa qayb lagu kaxayaa iyagoo u sheegay maaragtay jaamacado inay gelayaan inay fiicnaadeen hadhowna qaybina waa hagaagaan qaybina meeshoodii ka bilaabaan laakiin dadka qalin jabiyey had iyo jeer ma soo noqdaan ilaahay hidaayad buu siiyaa maxadkan cusub oo hadda aan soo dhaafnay gurigan soo dhaafnay waxaan ugu talagalnay 30 gabdhood inaan ku furo gabdhaha fasahaaday oo Soomaaliyeed baa waxaan rabnaa inaan u furo oo ay noqdaan gabdho saalixiina gabdhaha saalixiinta ah waxaan ku rajo weynahay aqalad diimeed inay dib u dhisaan oo fasahaadka iyo munkarka iyo macsida ay ka suuraan xifdiga quraanka ay dhamayaan manhajka lagu barayaan waxa weeye kitaabka quraanka ah tasfiirkiisa 12 kitaabo culumta islaamka ah luqadda carabiga naxwaheeda english xisaab iyo geography Soomaaliya iyo af Soomaali insha Allah billahi kareem intaana ragana waa la siiyaa dumarkana waa la siin doonaa dumarka iyo ragga labadaba waa la siinayaa insha Allah billahi kareem waxaan ku rajo weynahay in aan ku guuleysano dadkii imaan lahaa meeshaana waxaan ka sugaynaa caalamka dhan inay 30 gabdhood ka yimaadaan 30 gabdhood markay soo xiroodaan wixii kala weytin baan gelinaynaa haddii qofkanaado qofkii ugu xaq lahaa oo kow ahaa baan u yeeraynaa laakiin registrationku cid walba wuu furan yahay hadda sida loo soo kala horeeyo baan tixgelinta u sameeynaa annagu cadaalad xagga Ilaahay iska eegayna meeshaan aniga dhisay labada meeloodba cidina ilama dhisin in fact labadu waa waqaf ilaahay dartiisaan u dhisay kani masaajidkii buu leeyahay kaasina wuxuu leeyahay meel mawlac ah oo gabdhuhu ku tukanayaan iyo meel wax lagu barto kan wuxuu leeyahay waa ka weyn yahay waa meelihii hurdada waa kushiinkii waa bakaaradii waa meeshii waxbarashada waa masaajidkii waa xafiisyadii waa meelihii security-ga ciidan Puntland baa ilaaliya oo qaybta biliska Puntland ka tirsan waan dawladda ka soo dhamaynay si caruurta dadna u dhibin iyagana loo dhibin waayo waa dad waaweyn shido seen uga imaan gabdhahana waxaan u dhiibaynaa habra hooyooyin la yiraaho iyo gabdho macallimada rag loo geyn maayo isaguna wuxuu ka kooban yahay maqsulihii jikooyinkii xafiiskii mawlicii iyo meelihii dhaqdhaqida iyo waxaan ugu talagalay maqsulihiisii wixiisii wuu dhayn isagana macal sariirihiisii waa leeyahay laakiin joodariga iyo barkinta qofka imaanaya ma rabaa inuu keensado maadaama qofka dhididkiisa aan kala ilaalinayno qof walba inuu la yimaado laakiin sariiraha anaga dhignay iyo qalabka cuntada wax lagu cunaayo iyo raashinka oo bilinka lagu sameeyo maca furitaanka lagu sameeyo inta anaga dhigayna macallimiinta iyo hooyooyinkana waa insha Allah waxaan dalbaynaa marka 10 qof u horeeya aan hello oo aan u sameeyno macnaha waqtiga soo galayeen kulleejkan ragga haddaan dib ugu noqdo shida badan iyo tacab badan baanu gelinay juhdi badan baanu gelinay maalinba waxbaanu ka soo gudubnay hadda wuxuu ku shaqeynayaa sidii ugu fiicnayd xagga ammaankiisa marshido naga soo martay xagga waxbarashada shidooyin naga soo mareen dadka dhaqankiisa inaan bedelo baa shidooyin naga soo mareen waxaas oo dhan waa aragnimo badan oo aan helay markaan dabaqnay waxaan ku guuleysanay hadda inaan caadi u wada noolaano caadina wax isu baro arday iyo macallimiin iyo amiirna aan noqono ammaankana ciidanku noo hayo gabdhahana sidoo kale waxaan ku rajo weynahay inaan sidaas oo kale ku guuleysano khaladaad badan waa dhacaya insaan baan nahay laakiin khalad kasta waxaan uga gudbaynaa si caqli ah waagi hore dadka marka naloo keeno waxaanu ka qabi jiray phobia inay dagaalamaan inay dad dilaan in la dilo in problem kaas oo dhan haddana maalin bas aan step by step uga gudbaynay waxaanu ku soo ururinay qofku markuu shida sameeyo dhagaha qabso hadduu ku tanaasibi waayo in ka tiran lagu xiro oo aan jirkiisa waxba loo geysan isaguna markaa uu ku tanaasulo halkaasaanu gaaray ammaanka ciidankana aanu keenno waagi hore dad shicib baa ilaalin jiray laba jeer baa isku dhac ka dhacay meeshaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin cid kuma dhiman cid wax weyn ma gaarin laba wiil oo yar baa ku dhaawacmay labadii wiil oo dawadooda annaga siinay waxaanu ka soo gudubnay marxaladda oo xataa waxaanu kala xiray shaqaalaha iyo ardada askarta iyo waxaan kala xiray iyo ardada waxaan kala xiray kulli waa kala xiray waxaas oo dhan meeshaan waxay u furan tahay ilaahay dartiis iskama ilaalino waaridka waa canaan badan yahay waa cuqdad badan yahay waa war badan yahay
qof kastoo diinka shaqeeya sidii nabi maxamed baa waxa la oranayaa waa sixiroole sallallahu alayhi wasallam waa munaafiq waa beenlow waa kan wax walba waan la ku yiraahaa watawaasaw bil haqqi watawaasaw bis sabri wa kaga gaara ilaahay baan iska ilaalinaa waayo maalinta yawmal qiyaamaha maxkamad baa la iskeenayaa masqaala dartaan la isku dhaafay haddaan ku guuleysano sidaan rabnayna jannadaan dacalada ka buuxsanaynaa haddaan ku guul dareysano cadaabtaan dacalada ka buuxsanaynaa waa ognahay kuwa garanaya waana intaana waxaan rabnaa wixii aanu khaladnaba ilaahay baan u dhiibna waxaan dhahay ilaahay uu naga cafi ujeeddo iyo aragti iyo macna ogaan uma noo khaldine wixii khalad naga dhaca had iyo jeerna dadka meesha ka baxa 98 way noo soo ducayaan hadiyada noo soo diraan labaduna waa soo caayaan ninkii buuraayo hadana baacuga kugu dhufan waxaan kuwa waxa ilaahay ilaahu soo hanuuni kuwa hadiyadaha iyo ducada noo soo diraan waxaan dhahay ilaahu siyaadi waayo waa ilmaha yagi aan ku dadaalna juhdi gelinay labadaasna waxaan ku rajo weynahay marka juhdigu ku soo maacdo inay noo soo ducayn doonaan ama noo imaan doonaan iyagoo raali ah oo garanayo oo le maalinta haddaan halkan la keenin ma badbaadeen xaqiiqadu waa saas qof meeshaan ku qanacsan oo naloo keena ma jiro kuwa waxay kaleeyeen waaridka ilmaayigu meesha ma ku qanacsan yahay oo sida ugu qancaya waxaad ka soo xirtay fiidiyowgii waxa ka soo xirtay internetkii oo waxa ka soo xirtay telefoonkii oo facebookiiba waayay oo naagii fotada dhaadheeraaba waayay oo wuxuu waayay talaagadii guriga oo la iska raqi jiray 3 jeer baa cunto la siiyaa iyo 3 jeer cabitaana oo wuxuu waayay freedomkii sida xoolaha loo soconayay oo daroogadii uu waayay oo saaxiibadii uu waayay oo qiilo waqaalkii qabiilkii uu waayay sida ugu qancaya xagee keentay adigu waad shilib xirto waxaad tiri diin kaliya hal la baro haddii diin la barayo inta horena waa ooyaya marka dambena waa ducaynayaa waa ooyaya wuxuu ka ooyaya cabsi wixii uu hore u geystay in ilaahay ka cafiyo buu u ooyaya inta dambena inta horena wuxuu u ooyaya intii aad ka soo xidhay in la garto weey wiil iyo gabarna isku mid weey insha Allah bidnillaahi kariim dumarku way ka duwanaan doonaan waxaan ku rajo weynahay hooyooyinka wada iyo gabdhaha inta ay gabadhu degayso oo meesha la qabsanayso hooyaduna inay kuleejka la joogto cuntada iyaga karsan doona dharkooda iyaga dhaqan doona guryahooda iyaga nadiifsan doona kuleejka guud baa nadaafada aan ugu sameeynaa iyo muqsiraha oo kale qofka hadii wax ka khaldamaan iska khaldamay waxbarashadana gabdha jaamacadda ka soo baxay baan u yeeli doonaa iyo hooyooyin gacan macaan oo ay ku jiraan kuwii cunnada karin jiray si loo baro kuwa aan cunnada karsan aqoon Yurub iyo Mareykan iyo Canada laga keenayo aan ognahay oo sida wiilasha inay meel muxuu ahaa ka qaataan bahalkii in cunno ka dafaan oo kala cararaan ma aha aan cuntada karsan aqoon kuwana waxaan u keenaynaa dadkii dumaystikada ka soo baxay si u bartaan bariga maalin reerkeedii carruurteeda si ugu samayso aad iyo aad baa u mahadsantihiin idinkana waxa weeyaan juhdiga aad gelinaysaan ilaahay dartiisa aad u gelinaysaan waxa weeyaan waad garanaysaan inaba al-a'maalu bin-niyaati wa inaba likulli imri'in ma nawa waxaan niyeystaan idinkuna ilaahay dartii arrintan aad u sameeysaan ilaahay dartiisa isu jecelahay ilaahay dartiisa isu nimi ilaahay dartiisa u kala tagaynaa intaasaan ku soo gabagabeynaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin wixii su'aalo way ka jawaabaya